Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janaalka Tutor Xalana Care oo aad ugu barateen daawooyinka sida ugu bara lahayd ama barashada daawada. Cutubkeeni koowaad waxaan ka soo hadalnay sida loo barto daawada. Cutubka labaad ayaa maanta ku dhex jirnaa. Waxaan ka qaadanayaa casharkii koowaad, waxaan ka qaadanaynaa mar kale casharkii labaad. Waxaan hadda guda galaynaa meelaha daawada laga isticmaalo. Meelaha daawada laga isticmaalo. Meelaha daawada laga isticmaalo waa 8 meelood oo kala ah ama kala duwan. Number 1 afka oral. Number 1 afka oral laga qaataa. Number 2 in la isku duro irbad in la isku duro by injection. Number 3 in carabka hoostiisa la geliyo. Carabka hoostiisa la geliyo dadka way cusub tahay laakiin sharaxaad dheer ayaa ka sameynaynaa. Maadaama carabka hoostiisa la gelinayo waxaa loo yaqaanaa sublingual. Carabka iligta markino meesha ay iska galaan carabka iyo iligta meesha iska gaara dhanxanaga qaybta kore maahan qaybta hoose dhanxanaga. Number 3 inaad sidaas u fahantaan waaye sublingual ama in la taqsiinto. Taqsiin markii la dhaho tan iligta iyo bishinta maahan. Sublingual waxaa la dhahaa carabka meesha ka hooseyso iyo ilkaha hoose ayaa la dhahaa sublingual. Meeshaas daawo la geliyo oo loogu talagalay. Inta badan daawooyinka loo isticmaalo waa anti anginal. Number 4 in qofka daawada laga geliyo rectal ama xubinta haweenka vagina. Number 5 in isha lagu shubto waa goojo isha lagu shubto. Number 6 in sanka lagu shubto nasal coat oo ah goojo santa lagu shubto ama number 7 in korka la marsado oo mid cream oo kale ah. Number 8 in hawo ahaan loo qaato ama qofka neefta qabo kale inuu oxygen ahaan u qaato inhalation ayaa la dhahaa. Mid kasto oo qaababka daawada loo qaato oo ka mid ah waxa uu leeyahay faa'iidooyin u gooni ah ama ujeedo u gooni ah. Meelaha dadka laga duro injection sites. Meelaha dadka laga duro ee ugu caansan ee hadda la adeegsado waa 5 nooc. Number 1 duriinka xididka intravenous injection. Number 2 duriinka muruqa intramuscular injection. Number 3 duriinka maqaarka intraderma. Number 4 duriinka baruurta subcutaneous. Number 5 duriinka xangulaha spinal injection. waxaa halkaas noogu dhammaaday cashirkii labaad cutubkiisii labaad. Fadlan ha ilaawin subscribe inaad share samayso like and comment. waa mahadsantiin. cashiro badan oo ka qurux badan oo ka fiican oo aad loo diyaariyey ayaa mar dhow soo geli doonaa. waa mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.